Mar ayaa laba wiil oo saaxiibo ah wada socdeen meel kalena dhexdeeda. Waxay ogaayeen in wax kasta oo khatar ah ay iyaga ku dhici karaan wakhti kasta oo hawdka ay ku jiraan. Markaa waxaa midba midka kale u ballan qaaday inay u midoobi doonaan xaalad kasta oo khatar ah. Markiiba waxay arkeen libaax weyn oo ku soo socda. Mid ka mid ah wiilasha ayaa mar qura fuulay geed u dhowaa, laakiin kan kale ma ahayn nin dheer oo geed fuuli kara. Sidaa darteed, wuxuu is dhahay caqligaaga ku badbaad maanta, wuxuuna isku tuuray dhulka. Markaas ayuu nafta isku celiyay oo iska dhigay qof mar hore dhintay. Libaaxii ayaa u soo dhowaaday ninkii dhulka jiifay, markaasuu dhagihiisa uriyay. Libaaxii ayaa isaga tegay meesha. Wuxuu is dhahay, libaaxu kan waaba dhintay. Midkii kale ayaa geedka ka soo degay. Kolkaas buu dhahay, walaal, muxuu libaaxu kuu sheegay? Markaas buu ugu jawaabay, libaaxu wuxuu i dhahay, weligaa hala socon saaxiibka aan dhiigga kuu shubi karin.